nin dadka cibaadaysta ka mid ah wuxuu arkay nin dhallinyaro oo qoslaya markaasuu yidhi waryaahe miyaad maqal buu yidhi inay qur-aanka ku jirto wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya miyaad qur-aanka ku arag buu yidhi in ilaahay leeyay mid idinka midi ma jiro ilaa iyo naarta xaggeeda waa loo aroorinaya dee jidka siraad baa ku dul yaalla naarta waa is arkaysaan miyaa laguu sheegay buu yidhi inaad gelayso naartaas meesheeda soo arkaysa waa laguu sheegay inta ka badbaadaysa inaad tahay miyaa laguu sheegay uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aalimiina fiiha jathiya inta badbaadaysa inaad ku jirto adiga ayaa kuu sheegay buu yidhi maxaad la qoslaysaa maynan ogin inta badbaadaysa inaynu ku jirno ilaahay se waa ka baryaynaa subxaana wa tacaala qiyaamuhu hadduu dhacba ilaahay leeyahy waa maalinuu ka carari doono qofku walaalkii iyo hooyadii iyo aabbihii iyo tuuqabay iyo carruurtiisa uu ka carari doono waa maalin aanu cidnaba sokeeyo waraga uu carari doono waayo likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yughniih qof walba maantaa tiisa mashquulisay buu ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala beleda isaga haysataa ku filan cid wax kama kaafii kare isagaaba mashquula aayad kale ilaahay wuxuu leeyay yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum wakhshaw yowman laa yajzii waalidun can waladih walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay'a ina wacda allahi xaq آيات كلا إلهي وحلي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون إلهي وحلي ورددوا ورمالك الدور صدى كعب صدى مال أنكو وحدالي وحدالي وحبو قبن كريم كل دالينا عدي الشياني وحبطري كريم وهو يا إلهي يبوهي سوى النبا إلهي لأنه مالنتني إيمانيسو والنبا وديار قرو واركد ورصدا مالنا نفين النف وحوها هين با رب التلمام يا سبحانه وتعالى أيها الأحبة مالنتن دبت التاغن وحا إلهي كسفين يا قالضو هدي دولك أي لهان لهايين oo la yiraahdo isku furta waa isku furan lahayn dhibta haysata maanta adduunka xoolo wala jeceliye laakiin maalinta cadaabka carar walaw anna likulli nafsin zalamat ma fi al-ardi laftaddat bihi ba ilaahi naf kasta oo dulmi samaysay hadday leedahay dhulka waxa yaalaba laftaddat bihi waa isku furan lahayd ba ilaahi wala ilaahi wuxuu leeyahay قالكو هدو دولكن يلبلابكيبا ليه اسنا واسكو داي لهين واسكو فرتو والذين لم يستجيبوا له لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه دولك إياه إنك لو لك هدي لصيو لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب بلا إلهي وحكوت المامية دولك مقيو ذهب ما هدولك وقوله يسقو ذهبه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به حتى هدوها يستبى إلهي إليه دولك مقيو الذهب أو إذا هذا انتهى اللي قاضوا عنك ما انتهى اللي قدايو عيدك الدين ويستبى إلهي أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين واركوها عذاب كل البيلين عذاب وحلحوية وعقبة عيدو هيليسي عيدو قرقارتنا يالا مايا سيدا وقيد بالنبي حلي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري كي الله يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به ما أنت قياما قال لك يا نبا إلهي إليه سيدا النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت قياما قال لك يا markaasaa waxaa lagu yidhaahdaa war haddaad dhulka mugiyo dahaba haysan lahayd maanta ma isku furan lahayd fayaquulu nacam haa buu yidhaahdaa waan isku furan lahaa fayuqaalu lah waxaa loogu jawaabaa qad kuntu sa'altuka maa huwa aysaru min dalik
horaan kuu weydiiyey wax intaa ka fudud markaad dunida joogtay dhul mugiyo dahabaysii kumaan odhan baa ilaahay leeyay markaad dunida joogtay bas ii caabud baan ku idhi kaasoo ka fudud inaad dhul mugiyo dahaba keento tii fududayd baa lagaa waayey waxba cid maanta kaa dhegaysan mayaysaa la leeyahy wax ka fudud baad bixin weydaye xaalka gaaleed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa dadka intuu u jeclaa xataa haddii la yidhaha hala cadaabo oo adiga ha lagu sii daayo inuu aqbalayo yawaddu almujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniih wa saaxibatihi wa akhiih wa fasiilatihi alatii tu'wiih waman fi اlardi jamiican huma yunjiih kalaa inahaa ladaa wuxuu jeceliyey dembiiluhu baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala maalintaa cadaabkeeda inuu isku furto wuu jeclaan lahaa xaaskiisii iyo walaalkii iyo tolkii iyo qabiilkii iyo wuxuu sheeganayo o dhan iyo dhulka oo dhan haddii uu isku furan karayo waa isku furan lahaa si uu isagu u badbaado laakiin taasi ma jirta baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qodobka shanaad aynu tilmaamayno ee sheegaya maalintan dhibteedu intay leeg tahay waxaa ka mid ah maalinta dherarkeeda xataa haddaad cadaabka ka badbaaddo maalintan shiddadeeda haddaan alle ku badbaadin maalin fudud maaha waayo dee afkaynu ka leenahay waa maaline 50 kunoo sannadood bay u dhigantaa afkun baynu ka leenahay waa maalin qiyaame laakiin maalintaasi xisaabta ay joogto ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay tacruju almalaa'ikatu waalruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu 1000 sana aayad saasaa lagu tilmaamaya aayad kalena ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa maxay 50,000 sana mufasiriinta badh baa waxay dhahdaa maalintani waa 50 kunoo sannadood haddana 50kaa kuna sannadood maalmaheedu maalintiiba waa 1,000 sannadood mufasiriinta badh baa saa yidhahda ayan kaanat maalintani waa maalin ka dheer maalmaha caadiga ah maalin kumaankum sannadooda weeyaan innahum yarawnahu baciidan wanaraahu qariiba baa ilaahay leeyay iyagu waxay u arkayaan inay dhowdahay iyagu waxay u arkayaan maxay inay fog tahay annaguna waxaan u aragnaa baa ilaahay leeyay maalintan inay dhowday qiyaamo waa maalin dhow baa ilaahay leeyay laakiin bini aadamku dee markaa aakhiro looga sheekeeya wuxuu is idhahaa wakhtaad haysataa iyo dee qiyaamuhu beryahan ma jiro war adiga qiyaamahagu wuxuu dhacayaa maalintay naftu kaa baxdo dadka kale qiyaamahooda waxba kaama gelin adiga su-aasha iyo cadaabta iyo jannada iyo wax waliba waxay kuu bilaabmayaan maalinta naftu kaa baxdo adigu sugi maysid dadka kale inta la soo halaagayo haddaba maalintan dherarkeeda oo cadceeddu soo dhowday oo dadku dhididayaan oo qof waliba dembigiisa in laga dhididayo oo qofba dhididku meelu joogo oo isdixaam jiro oo cidhiidhi jiro oo kulayl jiro yacni maalinta tani waa maalin hayru caadiya cadceeddu way dhowday markaa dadkoo dhammi way dhididayaan laakiin waxaad dhididaysaa calaa qadri dembik dembigaagu intuu leegaa kolba meeshu waa cidhiidhi oo dadkoo dhan baa wada tuban ilaahay cadaabkiisiina waa la keenay oo iyana dee waa jahannamo kaloo lagugu soo dhoweeyey oo cadceedda ka kulul ayaa iyana 70,000 malak iyagoo jiidayaan bay keeneen jahannamina waa joogtaa baqa waa jira dabeetana dunidiiba qofkan haddii uu suurad ka qaato wax yar bay la noqonaysaa dunida suuraddeedii ilaahay wuxuu leeyahy wayowma yaxshuruhum kaan lam yalbathuu ilaa saacatan min nahaar maalinta la soo xaadiriyo waxaad moodaabaa ilaahay leeyay dunidii inaanay joogin saacatan min nahaar mooyaane wax kale saacad maalina haddii lagu yidhaha war dunidii intaad joogtay kaannahum yowma yarawnahaa lam yalbathuu ilaa cashiyatan aw duxaaha waxaad moodaabaa ilaahay leeyay adduunkii dhammaay ay ku soo noolaayeen in yaroo barqaagali raabagali dambe wax yaroo ka mida inuu yahay ربي وحلي نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما كوجود تقدير كفي عن له أيها وحرية ورملاء الدنيا دين وكان من مال وعد ميت
wixii oo dhami waxay la noqonayaan kii ugu fiicnaabaa wuxuu leeyahay maxay mala maalin waa dhammay yowma taquumu الsaacatu yuqsimu اlmujrimuuna maa labisuu hayra saaca mujrimiintana ilaahay wuxuu leeyahy waxaabay ku dhaaranayaan saacad waxaan ahayn inaanan joogin hal saac unbaan dunida joognay bay leeyihin dhibtan maalintan dadka haysataa waxay ilowsiinaysaa sannadihii iyo waagii uu soo noolaa ee dunidoo dhan dabeetana waxay ula muuqanaysaa inuu saacad noolaa saacad waxaan ahayn maanan noolayn bay leeyihin laakiin waxaa habboon qofka mu'minka ahi adduunkan nebigu wuxuu ku tilmaamay in loogu noolaado ka caabiri sabiil sidii qof jid goynaya waxaa in badan layna faray inaynu u diyaargarowno maalintaa qiyaame ficlan dadka badh dhibtaa badan arki maayaan dadka badh nebigu wuxuu tilmaamaya markaa cadcidda la soo dhoweeye dadku dhididayee naftu haysato inay carshuraxmaan hadhsanayaan axaadiis baa soo aroortay tilmaamaysa dad maxay iyagu carshuraxmaan hoos hadhsanaya marka dadkan kale sidaan u dhibban yihin imaamkii caadilka ahaa qofkii dhallinyarada ahaa ee taacada ilaahay ku barbaaray ee aan ka weecweecannin qofkii sadaqaadka la baxayey ee gacantiisu furrayd ee midigtiisu waxay bixiso aan bidixdiisu ogaanaynin qofkii masaajidda ku xidhnaa ee intuu tukado salaadba salaad ku sugaya qalbigiisu mucallaq masaajidka ku ahaa qofkii intuu cibaadaysto iyadoo aan cidina arkaynin keligii ilmaynaya ee ilaahay dartii la ooyayey qofkii xumaha zinada iska daayey ee ilaahay dartii uga tegey kuwaas buu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay labadii ilaahay dartii isu jeclaatay ee aan dan kale isu keenin waa kuwa carshuraxmaan hadhsanayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam cagsigeedana waxaa la tilmaamayaa kuwo sidaa u cadaaban oo qaawan oo kabala oo wax waliba haysataa caaisha mantiqii duniday ku fakaraysa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow dadku miyaanu is arkaynin rag iyo dumarba hadday qaawan yihiin nebigu wuxuu yidhi caaisha ay arrinku intaa ka weyn dad eega iyo baabkaasi maantaa ma jira buu nagu u tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam beleda taagani waxaanaad ka fakaraysa ka weyn buu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam indhuhuba waa ku engegan yihiin maxaad arkay naftaa qof walba haysataa idan darsiga kan danta laga leeyahay walaalayaal waxa weeyaan inaynan ilaabin maalinta tan qofkii maalintaasi xasuusani waxaa hubantiya in cibaadadiisu badanayso waxaa hubantiya in xumihiisu yaraanayo laakiin bini aadamku markuu is-ilowsiiyo ayuu wuxuu doono sameeyaa laakiin qofku intuu xasuusan yahay ilaahay inuu is-hortaagi doono wax kasta uu sameeyeyna in la weydiin doono maalintaa dhibta badan lana inay ka horrayso wuu u diyaargaroobaya qofku zaad iyaduu sii qaadanaya khayru zaadina zaadu taqwa baa ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamay وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين